gooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in kiisaska xanuunka COVID-19 uu ku soo kordhayo degmada iyadoo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dad xanuunkaasi ay u geeriyoodeen. Hadda waxaa hadda toos ugu jira Cabdulqaadir Cali Idle oo ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. Cabdulqaadir, bal waxaa nooga warantaa kiisaska COVID ee degmada Afgooye. horta marka hore assalaamu calaykum dhammaan bahda warbaahinta saxaafadda waa idin salaamay salaan kadib horta cudurkan COVID-19 kan horta caalamka dhan oo qabsaday gaar ahaan horta Soomaaliya Muqdisho zaa'id ahay gobolada waa ka ciimanay maadaama xuduud ama taqaatiir wax kala hagta aysan lahayn dowladda iska tawareer ay tahay horta degmada Afgooye COVID-19 ka zaa'id u soo galay laakiin dadka kama warhayaan baalka inuu cudur safmar u yahay adiga shalay bas janaasada masaajidka waxaan ku tukanay 8 ruux ilaa ay adeestana waxaan ku kor dhinteen aan la ogeyn nabadoon caana ku jiray saakadan hadda aan kula hadlayo 3 meeda xaawataako oo islaan ah bolofolio hal qof ah iyo gadigaas hal qof ah marka anigana maxaa u kurgalka bas maadaama intaas dhimatay dadkaas inaan xogtooda u aruuri laakiin xogtii meel aan la wadaaga male wasaaradda caafimaad oo maanta qalab iyo xataa maaskii xataa afka lagu xiranayo ankee isbitaalka degmada Afgooye hal xaba xataa ma yaalo laakiin maamul waa ka jirta gobol waa gobol oo hadda markoo kale iyo baraawi kulli waa la gaarsiiyey laakiin degmada maamulka degmada waa hadda arrin gobol maan degmada taagana maamul degmada leedahay soo mugid waa gartay maamulka degmada waa u sheegay waa la hadlay gudoomiyaha degmada duqa magaalada Awees waa u sheegnay haye dadkana saas subaakana dhimashadu way sii socotaa marka maamulka degmada maamul anaa hadda u hadlayo dhammaan gabigoodaba maadaama fursadan ugu faa'iideysayo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee laanta kamid ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan ka codseynaa inay shacabkan si degdeg ah ugu soo gargaaraan ayna u keenan xataa baalkii neefta ama naqaska lagu celi jiray la keeno isbitaalka la keeno ayaa ka codsan lahaa iyo hay'adaha ku shaqada leh caafimaadka waayo Cabdiqaadir marka haddii 8 qof oo shalay ay dhinteen u malaynaysan inuu xanuunka ku dhacay dadka uu soo ritay xagee lagu daweeyaa marka wallahi billahi nin kastaba xidis oo ku haya nin kasta gurigiisu iskaga jira meel la geeyo male meel karantiil male meel hadda maanta waa lagu baaraa la dhigi karo degmada Afgooye male ilaa ma ku taalabe laakiin xaruntii caafimaadka MCH Afgooye soo ma shaqeeyo MCH Afgooye wuu shaqeeyaa laakiin ha shaqeeyaa muxuu dhallaanka iyo caruurta bas ilaa iyo adeesto COVID-19 qofkan haayo waa baarnay nin dhahay male laakiin ummadda wada tacbaan way wada jiifaan dhamaantood waa kuwa xataa Afgooye fiiri Afgooye hal qof oo maanta afkiisa xiran yahay ma jiro mana jiro dhammaan wajiga afka u wada feedan yahay maxaa keeni karo ilaa baalki maaskarkii aaba oolin sooma laakiin maaskiga hadda waa la sameeyaa waxaa yimid xarqaano sameeyo Afgooyena waa magaalo xadaari ah marka inaa wax sugtaan miya la samaysto ma maya qaarkood way samaysteen oo way xirteen oo way isticmaalaan laakiin dadka maxaa la wacyigeliyo maaskarka inuu wax dhib keenaynin uu fiican yahay oo neefta kale qofka ka soo fuqayso oo u gaarin la wada xirto wacyigelin in la wacyigeliyo keligii 24 saac aniga baraas bulshada ka hadla wacyigelinta wado laakiin wax kale oo garab igu siiyo wacyigelinta sameeyay xamar oo kale qaxootiyaha waa la tagaa ambalaasiya wareego gaadiida wareego dhalinyara wareegto marka ma sha Allah markoo kale shaqadaas way ka socotaa wallahi niyow degmada Afgooye ma ogsaxaa culeyskeeda waligeedana u dambaysa degmada waayahay waxa rabaa ugu dambeyn bal ina ka waranto Cabdulqaadir Afgooye waxa soo gaaray laamigii Muqdisho iyo Afgooye horay loo ballamay in la dhiso marka halka waxa idin maraya ma sha Allah wadada Afgooye ma sha Allah laamiga wuu soo gaaray waliba gudaha sii gelin rabnaa wadooyinka dhan ee degmada Afgooye 4 wada kamid ah laamiga waa la saari rabaa taas gudoomiyaha hore u ballan qaado meediyaha ka sheegay haddana kulliba waxa shaqada hadda shalay iyo maanta kulli way istaagtay maadaama calanka Soomaaliya la dajiyay oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed uu geeriyooday saas darteeda ayaa xoogaa loo adkeysaan filayo wadada hadda